halkani waa Gaacir Media waa barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media TV dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena ku soo dhawaada Trump oo yeeshay aalad sida Facebook camal oo lagu wada xiriiro Trump ayaa sameystay bar bulsho oo lagu wada xiriiro oo la yiraahdo Truth Social kadib markii shirkadaha Twitter, Facebook iyo wax la mid ah ay xanibaad saareen ayagoo u sameeyay carqaladeynta natiijadii doorashadii Mareykanka ee 2020 iyo falcelintii uu ka bixiyay Trump taasoo markii dambena dhalisay kooxaha isaga taabacsan inay weeraraan golaha Congress-ka Mareykanka ee Capitol Hill falkanina wuxuu dhaliyay dhimasho iyo dhaawac haddaba warbixinada ayaa sheegaya in sare ay u kacday saamiga la kala siisanay ama looga qayb qaadanayo barahani bulsho ee Trump ee la yiraahdo Truth Social waxaa la sheegayaa inuu u qabiisan yahay sida Facebook warbixinada waxay intaa ku daraysaa qofka inuu wax uu rabo soo dhigi karo barahani bulsho ee Trump oo wax faafreeb ah uusan lahayn balse arrinka ugu badan ee khibrada teknoolajiyadda isweydiinaya waxay tahay Trump oo ay taabacsan yihiin kooxo cadaan ah oo cunsuriyadu dhinaca martay sidee dawladdu Mareykanka ku xakameyn doontaa barahani bulsho ee Trump ee la yiraahdo Truth Social